halkan maanta aanu joogno Alamsi Stadium garoonkii kubadda cagta Burco ma runtii sharaf ay noo tahay waxa ku sugan halkan barasaabkii gobolka Togdheer iyo maayarkii degmada Burco coachkeeni wana Jaakaraacin iyo Xasan Waraabacde runtii waa arkaysaan inay mas'uuliyiintii ugu sareysay gobolka iyo kuwii degmada ugu sareeyay inay taageerayaan joogaan imadan buu garoonka soo noqnoqday maartay hadalkiisu oo warbaahinta laftiinu soo duubteen laakiin aragtaan maanta aan u dhannahay in garoonkii wax laga qabto oo doorkii gobol ahaan iyo degmo ahaan leenahay garoonkan aragtaano roogiisii wuxuu ahaa garoonkii ugu horeeyay ee miisaaniyadda la geliyay rooga dowladda dhexe garoonka Burco nasiib darro wuxuu noqday garoonkii ugu dambeeyay haddana la dhigo taasi kole anagu dadaalkeega berigii wasiirkii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha cabdi siciid faahiye joogay barnaamij geliyay may suura gelin oo dee roogii waa yaallaa wasiirkana waan arkay buuri oo u yaallaa laakiin intaaba dee waxba kama ogeen maayarka magaalada iyo barasaabkii joogay yanoo xildhibaanadii golaha deegaanka waxba kamaanaan ogeyn runtii roogaa iminkana lafteedana maanaan arag anagu maayarkii barasaabkuna may arag annana maanaan arag laakiin de wasiirka inaan arko haya intii naga saareed annaga maanta waxa loo joogaa aan isugu wada nimid in garoonkii wax laga qabto marka intii nala gudboonid annaga marka wuxuu maalinkan doonayaa inaan ka sheego in maanta laga bilaabo dee aanu ficilkii loo bedelayo oo mas-uuliyiinta gobolkuna nagu hogaaminaya markii degmadu oo aanu samayno wixii dee annaga khuseeya wixii de wasaaradda roogga haddii tiya dhigiddeeda tanadeega u taallaa marka la dhameeya aan dhamaynaa kolle anigu xildhibaan mubaarag ahaan waxaan ku deeqayaa mushaharkeyga bisha ugu horeysa $500 baan bixinayaa waan dhigayaa moogto aan dhigayaa insha allah